وعنو wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee ka dhaca Soomaaliya iyo caalamka qodobada aad ku daawan doontaan wararkeenana waxaa kamid ah baarlamaanka Soomaaliya oo ansixiyay muddo kordhin uu dalbaday ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya booliska Soomaaliya oo gacanta ku soo dhigay ku dhawaad 100 ruux oo iskugu jira burcad iyo ciyaal weerar kadib howlgalo laga sameeyay Muqdisho maamulka Jubbaland oo amarro culus dul dhigay hay'adaha caalamiga iyo ganacsatada ku dhaqan deegaanada maamulka Jubbaland iyo al-shabaab oo weerar dhaliyay khasaare ku qaaday saraakiil ka tirsan ciidanka booliska dalka Kenya intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaa wararkeena imikii aatan u diyaar garooba daawashada iyagii oo inta ka dhameystiran waa 25 bisha 7 sanada 2022 hadii ay tahay markii kuugu horeysay oo soo booqatid channelkeena haylaawina subscribe tiraadid kadibna aad furatid calaamada gambaleelka si ay ku soo gaaraan wararkii ugu dambeeyay ee ka dhaca Soomaaliya iyo caalamka siina gaarsii saaxiibadaada jecel horumarka dalka adigoo ku sheer gareynaya baraha bulshada inagoo ka dheeraanayna wax walba dalkana dib u celin kara aynu ku bilownay baarlamaanka Soomaaliya ayaa soo saaray go'aan la xiriira magacaabista golaha wasiirada cusub xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya oo maanta kulan ku yeeshay xarunta Villa Hargeysa ayaa ka hadlay magacaabista xubnaha cusub ee golaha wasiirada Soomaaliya iyaga oo go'aan cusub ka soo saaray kadib kulankooda kulankan ayaa waxaa soo xaadiray ilaa 45 xildhibaan oo ka tirsan golaha shacabka waxaana shir gudoominaya Sacdi Yaasiin oo ah gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka ugu horeyntii waxaa xildhibaanada Soomaaliya loo akhriyay warqad ka timid xafiiska ra'iisul wasaaraha taas oo ku dalbanayay in muddo 10 cisho ah oo dheeraad loogu daro waqtigii uu ku soo magacaabi lahaa golihiisa wasiirada cusub maadaama muddadii 30 maalin ahayd oo uu haystay ay ka dhamaatay waxaana qoraalka akhriyay Xogaya Cabdikariin Buux kadib xildhibaanada ayaa cod gacantaaga u qaaday codsiga ra'iisul wasaaraha waxaana ogolaaday 144 xildhibaan halka uu diiday hal mudane sida ay shaacisay Sacdiyo muddada uu codsaday wuxuu ra'iisul wasaaraha sii wadayaa la tashiyadii ku aadanaa dhismaha xukuumad tayale waxaana madaxweynaha iyo gudoomiyaha baarlamaanku la qaateen Xamza qorshihiisa muddo kororsiga ah muddadan uu codsaday ra'iisul wasaaruhu wuxuu sii wadayaa la tashiyadii ku aadanaa dhismaha xukuumad tayale waxaana madaxweynaha iyo gudoomiyaha baarlamaanka ay la qaateen Xamza qorshihiisa muddo dheeraysiga ah inkastoo dastuuri aysan ahayn in 30 cisho lagu soo dhiso xukuumadda haddana Soomaaliya ayay ka noqotay dhaqan siyaasadeed oo ay leedahay waxaana maalmahaas ra'iisul wasaaraha u bilowdeen markii loo ansixiyay in uu noqdo ra'iisul wasaaraha waana dhaqan soo jireen ah ilaa iyo xornimadii Soomaaliya kulanka golaha shacabka ayaa sidoo kale imaanaya xilli horey kulan wadajir ah u yeesheen madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud gudoomiye Sheekh Aadan Madoobe iyo ra'iisul wasaare Xamza Cabdi Barre kaas oo diiradda lagu saarayay dhismaha xukuumadda cusub wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xamza Cabdi Barre ayaa maalmihii tagay waxa uu wada la tashiyo ku aadan dhismaha xukuumaddiisa waxaana jiray xubno lagu qancinayay wasaaradaha qaar sida aan ku helno xogo hoose ra'iisul wasaaraha ayaa xilligan si ambaqaaday la tashiyadii uu wada kuwaas oo ahaa kuwii ugu dambeeyay ee lagu wajahaya dhismaha xukuumaddiisa booliska Soomaaliya ayaa gacanta ku dhigay ku dhawaad 100 ruux iyo hubkii ay wateen ciidamada ammaanka ee dawladda Soomaaliya gaar ahaan kuwa booliska ayaa howlgalo ka sameeyay degmooyin ka tirsan magaalada Muqdisho kuwaas oo lagu xaqiijinayo amniga si looga hortago falalka amni darro ee ka dhaca caasimadda howlgalkan oo ahaa mid qorsheysan ayaa si gaar ah looga sameeyay xaafado ka tirsan degmada Kaaraan oo ka mid ah meelaha ugu daran marka laga hadlayo amniga caasimadda afhayeenka booliska Soomaaliya Cabdifataax Aadan oo u warramay warbaahinta kadib marka uu soo dhamaado howlgalkan ayaa ka warbixiyay sida ay wax u dhaceen waxaana ujeedka uu ku sheegay sidii loogu hortagi lahaa kooxaha dhibka u geysta dadka shacabka afhayeenka ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in ciidamada ay gacanta ku soo dhigeen ilaa iyo 70 ka mid ahaa kooxaha ciyaal weerarada kuwaas oo dhibaato ku hayay dadka ku nool degmada Kaaraan sidoo kale afhayeenka ayaa waxa uu xusay in 50 midiya ah oo ay ku jiraan kuwa casri ah oo aan hore dalka loogu arag in ay ku soo qabteen howlgalka kuwaas oo dhac loogu geysan jiray dadka shacabka ah waxa uu sidoo kale intaa ku daray in guri uu deganaanin uu sheegay in uu ka caban jiray amni darrada ay ka soo qabteen tuutaha ciidanka kaas oo uu tilmaamay in lagu geysan jiray falal amni darro maadaama uusan askari deganin hoyga laga soo qabtay dharkaas ugu dambeyntii afhayeenka ayaa waxa uu ugu baaqay shacabka ku dhaqan caasimadda in ay wada shaqeyn u la yeeshaan laamaha amniga ee howlgallada ka wada gobolka Banaadir si looga hortago kooxaha dhibaatada ku haya shacabka muddooyinkii dambe ciidanka dawladda ayaa dagaal adag waxay kula jireen burcadda hubeysan iyo ciyaal weerarada waxaana howlgal loogu magac daray Samakaab ay ka bilaabeen Muqdisho kaas oo lagu soo qabtay burcad badan
maamulka Jubbaland ayaa soo saaray amarro ka dhana ganacsatada iyo hay'adaha ka howlgala deegaanada maamulka Jubbaland. Wasaaradda Amniga Dowlad Goboleedka Jubbaland ayaa soo saartay amar ku socda dhammaan hay'adaha caalamiga ee ka howlgala deegaanada maamulka Jubbaland iyo ganacsatada waaweyn kuwaas oo la xiriira dhinaca amniga. Qoraal ka soo baxay wasiirka wasaaradda amniga Jubbaland General Yuusuf Xuseen Cismaan Dhuumaal ayaa lagu wargeliyay dhammaan hay'adaha caalamiga iyo kuwa maxalliga, shirkadaha, hoteelada iyo ganacsatada waaweyn in ilaalada goobahooda ay weydiistaan shirkadaha amniga ee ka diiwaan gashan dowlad goboleedka Jubbaland. Sidoo kale wasaaradda amniga Jubbaland ayaa ku wargelisay hay'adaha caalamiga ah, hoteelada iyo shirkadaha waaweyn in laga bilaabo 9 bisha Agoosto 2022 dhammaan hubka sharci darrada ah ee lagu arko xarumaha kor ku xusan in hubka laga aruurin doono. Ugu dambeyntii dhammaan hay'adaha ay khusayso fulinta amarkan ayaa waxaa la farayaa in ay gutaan waajibkooda marka la gaaro xilliga cayiman, haddii kale tallaabo sharciga laga qaadi doono. Amarkan ka soo baxay wasaaradda amniga dowlad goboleedka Jubbaland ayaa ku soo beegmaya xilli dhowr jeer ay weeraro ka dhaceen deegaano ka tirsan maamulka Jubbaland kaas oo mas'uuliyadiisu ay sheegteen Al-Shabaab. Maamulka Jubbaland ayaa waayihii dambe waday qorshayaal kala duwan oo lagu xaqiijinayo amniga isla markaana looga hortagayo weerarada ka dhaca deegaanada maamulka Jubbaland. Tallaabadan ayaa waxay noqonaysaa mid saameyn weyn ku yeelanaysa milkiilayaasha hoteelada, ganacsatada iyo sidoo kale hay'adaha caalamiga ee ka howlgala deegaanada maamulka Jubbaland. Ugu dambeyn, saraakiil boolis Kenyan ah ayaa lagu weeraray xadka ay wadaagaan Soomaaliya iyo Kenya. Kolonyo ay wateen saraakiil ka tirsan ciidanka booliska dalka Kenya ayaa qarax iyo weerar toos ah waxaa lagula beegsaday wadada Finashiq Borough ee magaalada Mandera ee dalka Kenya. Qaraxan oo ahaa miinada nooca dhulka lagu aasa ayaa qabsaday mid ka mid ah gaadiidka ay wateen ciidanka booliska dalka Kenya, waxaana xiga weerar toos ah oo la sheegay in uu kaga yimid saraakiisha xubno ka tirsan Al-Shabaab. Saraakiil ka tirsan ciidanka booliska Kenya ayaa waxay sheegeen in xilliga la weeraray ay ka yimaadeen dhinaca deegaanka Fino ayna ku sii jeedeen dhanka Sheikh Borough, isla markaana ay iska difaaceen weerarkii kaga yimid Al-Shabaab sida ay hadalka u dhigeen. Goobjoogayaal ayaa sidoo kale waxay sheegeen in saraakiisha ciidanka booliska dalka Kenya ay iska caabiyeen weerarka kaga yimid xubnihii ka tirsanaa Al-Shabaab ee qaraxa marka hore la eegtay, inkastoo aan la ogeyn khasaaraha dhabta ee ka dhashay weerarkaas. Deegaanka uu weerarku ka dhacay ayaa u dhow xuduudda ay wadaagaan Soomaaliya iyo Kenya, waxaana dhowr jeer weeraro ka geysta Al-Shabaab. Al-Shabaab ayaa inta badan weeraro isugu jira qaraxyo iyo mid toos ah waxay la beegsadaan ciidanka Kenya kuwaas oo ku socdaalaya xuduudda ay wadaagaan Soomaaliya iyo Kenya. Ciidanka Kenya ayaana ku sugan qaybo badan oo ka mid ah gobolka Jubbada Hoose iyo sidoo kale gobolka kale ee Gedo, halkaas oo ay ku joogaan magaca ADMIS oo ah howlgalka kumeel gaarka ee Soomaaliya xilligan ka jira. Dhowr jeer weeraro khasaare badan dhaliya ayaa lala eegtay ciidanka Kenya xilliyo ay iskaga gudbayeen magaalooyin ka tirsan xuduudda Soomaaliya iyo Kenya. waayihii dambe waxaa soo badanayay weerarada tooska ee lala beegsanaya ciidanka Kenya kuwaas oo ka gudbaya xadka ama mararka qaar Al-Shabaab ayaa ka tallaabay gudaha xuduudda Soomaaliya iyagoo gala dalka Kenya. Weerarada ugu badan ee Al-Shabaab ay ku qaadaan ciidanka ka howlgala Soomaaliya ee ka tirsan howlgalka ADMIS kana soo jeeda dalka Kenya ayaa waxaa ka dhashay khasaare soo gaaray ciidanka iyo saraakiishooda. Dhowrkii bilood ee taga ayaa weerarada Al-Shabaab ay ku qaadayaan ciidamada Kenya ee ku sugan Soomaaliya marka ay ku socdaalayaan xuduudda u dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenya waxay ahaayeen kuwa tir ahaan aad u badan. intaasina daawadayaal waxaa ku dhan wararkii ugu dambeeyay ee ka dhaca Soomaaliya iyo caalamka waadna ku maasantihiin la socodkiina iyo la saanqaadkiina wixii aragti ood noo haysaana noogu reeba qaybta hoose ee commentiga.